السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورالي دمانتي مالكستو عالم كاد كجوكتان بسكسو نقض وناكسن كنا سو دوادا أيوب أحمد بودكاست markaad nin raga tahay weliba aad ku jirto xaaladda aad ku xulanayso gabadha noloshaada u rabto gabadha aad rabto inay xaaskaaga noqoto gabadha aad rabto in aad ku degto waxaa jira dhaqamo iyo dabeecado ay lagama maarmaan tahay inaad marka hore si fiican uga fiirsato haddaba waxaan mawduuceenan maanta kugula wadaagi doonaa 7 dabeecadood oo dumarka qaar ka mid yihiin ay leeyihiin rag badanna markay gabadha la socdaan sahladaan taasoo sabab ugu noqoto marka ay reer dhistaan in reerku uu u dumo si ka dhaqso badan intii ay soo wada socdeen midda koobaad waxay tahay dumarku siday u badan yihiin waxay taagan yihiin diilinta tartanka dhammaadkeeda inta ka horeysa ee aad kufkacayso ee dhaqaale darrada ku hayso ee aad niyad jaban tahay nolosha ka kala daadsan tahay kuma kala jecla meeshan kama hadlayo reer dhisan oo hadda ninka dhaqaale darra la soo gudboonaatay gabdho fara badan oo wanaagsan oo ninka ugu dulqaata inta nolosha uu haddana kabanayo way buuxaan way jiraan laakiin tanaan ka hadlayo waa marka aad xiriir ku jirto waa marka aad gabadhan mustaqbal ka rabto weli aydan isguursan tartanka aan ku sheegayo ee diilintu ku dhamaado dumarku sidii u badan yihiin taagan yihiin waa kan raggu ay ku jiraan mana ahan inay gabar iyo dumar u tartamayaan waxaan ka hadlayo waa dhinaca dhaqaale waxaan ka hadlayo waa dhinaca wax qabsiga waxaan ka hadlayo waa ninku inuu wax u taagan yahay iyadu waxay raadinaysaa ninka uu ka horumarsan yahay tartanka marka lagu jiro ninka ugu dambeeya maahan isheedu waxa ay qabanaysaa waxa isheedu ay qabanayso nafteeduna ay jeclaysanaysaa walow xaaladaha qaar aysan jacayl dhab ahoo inay la dhaqanto la degto la joogto aysan u haynin ninka ay fiirinaysaa waa kan ugu soo horeeya ee diilintaas soo gooya marka ay noqoto dhinaca adduunyo hana ka aaminin markay gabari kugu tiraahdo ragga lacagta leh anagu ma daneeyo ninka lacag kuma qiimeeyo ninka lacag kuma fiiriyo iyo wixii la mid ah Soomaalidu waxay ku mahmahdaa dheh ilkahaaga aan tiriyo waa ceeb oo ma awalba adoon waxba haysan ay ku oran kartaa anagu waxaan ka helaa ragga lacagta leh oo soo adigana la socda ka dhalanaysa Soomahan dabcan dumarku raggu siday u badan yihiin waa ka aqli badan yihiin hadallada ay ku oranayso 99.9% waxaan hubaa hadal ay ka soo fiirsatay saamaynta uu kugu lahaan karana ay ka soo baaraan degtay uunba inta ku soo xusha kugu oranaysa way dhici kartaa marka hore inay muuqaalkaaga ku soo jiidanto adna aad moodo 100% inay ku rabto kadibna aad isbedel aragto waana meelaha raggu ay ku jaha wareeraan bay ka mid tahay in mararka qaar fariimaha soo gaaray ka mid tahay aad aragto wiil oranaya gabadhani way jeclayd markii hore wax walba caadi bay ahaayeen laakiin hadda waan fahmi kari lahay gabadhii maxaa khaldan waayo marka hore haddii aad u diyaarsan tahay ogtahay ciyaartani qaabka ay u socoto iyo dhaqanka dumarku ay leeyihiin iyo noloshu siday u taalo iyo fahankay kaaga baahan tahay kuma jahwareeraysid marka horeba haddaad ogtahay in gabadha baaritaanka ay kugu haysaa uusan intan ku ekayn inaad soo jiidatay oo kaliya inaysan kugu filnayn in intaa ka badan ay u baahan tahay horta inay kaa xaqiijiso inaad leedahay si ay kuula joogto jahawareerka rag badan ay ku jiraan maad aragteen midda labaadna waxay tahay gabadhu nin raga kuuma aragto inta dhaqan xumadeedu ay caadi ku tahay badi waan dareemi karayaa ninku markay gabadhu ku cusub tahay oo dareenku ku cusub yahay oo xiisaha faraha badani uu hayo wax badan bay iska indhatiraan oo dhagaha ka furaystaan hadhow goor wax walbaba ay iyadu u qaadatay inay agtaada caadi ka tahay buu ninku soo baraarugaa meeshan marna kuguma dhiiri gelinayo nin raga oo dhammaystirana kuma tihid haddaad ka mid tahay ragga qayliya oo caradu ka xoog badato ma taqaanaa waxa u muuqdo qof dumara marka aad xanaaqdood hortaagantoy ku eegayso oo wax yaroo dhacay wax weyn aad ka dhigto oo khudbad inaad bixinayso kala lagu moodo ood qaylinayso marmarka qaar alaabta tuurtuurayso waxay aragtaa nin daciifa oo booskii raganimo ilaahay uu dhigay isagu hoos isaga soo dejiyey inaad tahay walillaahi almathalu alaclaa suuratul a'raaf meel waxaa jirta ilaahay uu tusaalaha ku bixiyey eyga waxaan arkay 2 ey oo maalin dhaweyto meel wada jooga labadan midba aad u yaro wuxuu leeyahay boorsada ay haweenku qaataan ee garabka surtaan kan kalena waa mid weyn oo xoog badano waa iska fadhiya dadka xataa ma fiirinayo kii yara waxa qaylo ka baxaya intaasoo mayl baa laga maqlaya bal haddana dadka meelaha maraya mid ka mid oo uu u soo dhaqaaqayana ma jirto waxaan ka wadaa marka aad qayliso oo hadalku kula dhaafo intii muhiimadiisu ay ahayd
marba marka intaa ka sii dambaysa agteeda waad ka sii liidanaysaa hadalkaagana ixtiraam uma haynayso wax allaaliya waxay rabtay haddana ku oran inay kula tirsata adaaba ku dhiirigelinaya meesha tan waxaad u fiirsataa bini aadamku way is ixtiraamaan iyagoo kala cabsanaya laakiin cabsi iyo ixtiraam isku meel ma geli karaan dabcan haa qofku marka uu ka baqayo in uu ku waayo wuu ku ixtiraamaya hadda dadka aad ixtiraamto qaarna xooggoodaad ka baqaysaa dee inay wax ku gaarsiiyaan qaarna waxaad u ixtiraamaysaa ood u ilaalinaysaa u dhowraysaa si labadiinnu aydan u kala dhiman muhiimadda hadalku uu lahaa wixii ka dambeeyey markaad aamusto waxaad u oggolaan in maskaxdeedu ay fakarto laakiin haddaad hadalka waddo meel ay kaala qabsato oy muranka kaala bilowdo uunbay ka fakari doontaa markaa wixii ka dambeeya waxaanad is arki doontaa adigoo hadalka meeshaad ka soo bilowday meel aan ahayn aad labadiinnu isla joogtaan midda saddexaad waxay tahay gabar aan reerkeedu raalli ka ahayn ha isku qasbin qalbi fayoobidu waa qayb weyn nolosha ka mid ah weliba gaar ahaan qofka aad nolosha la wadaagto marka waalidkii uu ku qalbi fayow yahay laakiin reer dhan oo aad gabar ka guursatay oo aan ku jeclayn ku rabin markii horeba aad isku qasabtay meesha markaad gabadhooda guursato iga qor hadalkan intaan bal la gaarin maalinta isqabsigiinna iyo khilaafkiinna ka hor hadallada dhagaheeda ku soo dhacaya iyo sida negatifeka ah reerkeedu ay u hadlayaan baa wuxuu in badan dumarka sabab ugu noqdaa inay ninka iska nacaan ilkaha iyo carabku iyagoo isku meel degan baa haddana ilkuhu carabka qaniinaan khilaaf waa imaan doona labadiinnu waxbaad isku maandhaafi doontaan markaasay gabadhu ku isticmaali doontaa wixii waalidkeed iyo khilaafkii iyo wixii hore jiray markaasay ku oran waa kaasa shalay waxay lahaayeen iska daa haddaanan ku guursan lahayn maanta nolosha tan maan ku jirin sidan ma aan ahaadeen markaa weeye marka aad ciil dhab ah dareemi doonto ha sugin marka intaad wakhtiga isla gaaraysan inta hadda maanta aad bannaanka kala joogtaan haddii reerkeedu ilaahow may 5% noqoto haddaynan reerkeedu kuu muujinayn 100% inay raalli kaa yihiin gabadhaa waxay dantu kuugu jirtaa inaad bannaankaa ka marto midda afaraadna waxay tahay gabar kontarool badan laakiin waxaa muhiima marka hore inaad fahanto kontaroolku sidee buu horta ku bilowdaa Soomaalidu waxay ku mahmahdaa goor mindii uusku tagtay gooray xaaladdu fara ka baxday oo la isla fogaaday bay rag badani hurdada ka kacaan markaas isweydiiyaan sideen halkan ku soo gaaray anigoo dhanba waa la yeeshay wax walboon qabanayaba waa tan gabadhii controlaysay inta badan dhowr waxyaabood baa ragga isugu taga waa marka koobaad in gabadha tan kalgacalka aad u haysa uu ilaa xadaaf gaarsiisan yahay oo aadanba arkinba hadday kaa tagto nolol kale inay jirto tan micnaheedu marna maahan inaan kugu dhiirigelinayo la shukaanso oo khiyaan oo qalbiga ka jabi maya taa maaha marna waxaan kugu dhiirigelinayaa laakiin in aad ogaato in naftaada iyo noloshaada aad xor u tahay gabdhaha qaar waxaa jira naqaska kugu dhajinaya 8 saac ama 9 saac shaqo ku jirto baa waxa laga yaabaa gabadhu inay ku tiraa telefoonkan iskaga jiraya inta badan waxa keena in tan fahankeeda rag badan ay ka hoos baxdo waa inay gabadhu isaga dhigto u muujiso inay wehelkiisa rabto inay codkiisa maanta oo dhan iska maqasho iyo wixii la mid ah ilaa gurigaaga aad ka timaado bay telefoon ku jiri markay gurigaaga kugu hubsato bay koornoorad iska qubayso iska yaranaso hadhow baan ku soo wici doonaa intaasoo xataa gabdhaha qaar kuma filna waxaa laga yaabaa inaad is aragto adoo dadkii guriga aad la joogtay la jooga haddana aan la joogin qolka horaad ku xiran tahay telefoon baad caawa dhan ku jirtaa dadkii oo dhan baa xataa kula yaabaya waxaad cunayso saaxiibadaada aad raacayso qofka aad la hadlayso war xataa online-ka adoo ku jira haddii lagu arko waxaa lagu oran online-ka maxaad ka dhex qabanaysaa oo inaad ii sheekaysid bay ahayde inaad isoo wacdito ma ahayn maxaad halkan ka samaynaysay bal passwordka ii soo tuur dee kalsooni in laisku qabaso ma fiicna aan ogaade meeshan ragow si fiican ii dhegaysta weligaa noloshaada gabar aad la socoto passwordkaaga ha siin maalinta passwordkaaga siisa waxay ku aragtaa wax daciif oo liita inaad tahay kuma arkaysa nin sharaf iyo qiimo iyo ixtiraam mudan inaad tahay waayo markaad passwordkaaga bixinayso waxa kalifaya maxay tahay maxaaskayga maya xaaskaaga waaba la garan karayo xalaal baad isu tiino isku guri baad ku nooshihiin laakiin kumaba qabeyseen passwordkay ku siiya maxay naga dhaxeeya waxay naga dhaxeeya waa hadal wax ka badan ma ahan haddaba naftaada intaad isheli lahayd adigoo dhan lagu kontroolayo xaaladaha qaar rag bay waxay la gaartaa in la yiraahdo accounting intee ku jirta oo shalay intaasaa ku jirtay inta kale xageed geysay
hadda social media ku jira dad fara badan baa war ii soo dira waxyaabaha aan arko qaarkood waad la yaabi lahaydeen haddaad akhrin lahaydeen haddaba marka ugu horeysaba controlku meesha uu joogo ku jooji haddii kale markay mid kugu socodsiisaba mid kale cusub bay bilaabi ilaa marka dambe aad ciriiri dareento oo waxyaabo badan oo muhiim noloshaada u ah waqtigoodu uu ku dhaafo ood ishesho adiga iyo iyada oo ka murmaya waad isbedeshay iyo ismaadan bedelin midda shanaad waa aabaheed gabadhu ninka nolosheeda ugu horeeya ee ragoo dhan tusaale u ahi waa aabaheed wayna dhici kartaa inaad isweydiinayso gabadha aabaheed iyo aniga maxaa iskaga kaaya xiran dee marka laga soo tago inaan gabadhii ka doonto uu isiiyo gabadhiisii guursado kadibna uu sodogay sidaa ku noqdo haddaba midaan raba inaa fahantaa waxay tahay 3 nooc oo aabbayaasha ka mida gabdhahay koriyeen aabbayaashaasu dhaqanka ay leeyihiin saamaynta uu gabdhaha ku reebo baa sabab waxay ugu noqotaa ragga ay mustaqbalka guursadaan inay iska hor yimaadaan 3 nooc ee aabbayaashani ay ka kooban yihiin kan u horeeya waa mid gabadhiisa kibriya waxaa dhici karta gurigoo dhan cagta inuu marin karo xataa hooyadii dhashay gabadha ee isagu uu qabay waxaa dhici karta iyada darteed inuu u furi karo madaxay u saaran tahay adigu xageed akhbaarta ka helaysa marka xageed ka ogaanaysa iyadu markay kuu sheekaynaysaad ka dareemi doontaa guriga madaxaan u saaranahay cidina ilama hadasho gabdhaha kale waa la kontroolaa anagu waxaan doonaan sameeya ogow marka adiga saamaynta meeshay kaaga lahaan doontaa waa marka berri mas-uuliyaddaada aad damacda inaad gudato way kaa hor istaagi doontaa waayo gabadhani ninkii ugu horreeyey nolosheeda ay aragto aabbaheed buu ahaa sax aabbaheedna umausan ogolaanin in mas-uuliyad la saaro oo lala xisaabtamo markaad damacda inaad la xisaabtanto adiga iyadu aad iska hor imaan doontaan iyadoo ooyibay aabbaheed wici aabbaheedu ordaya guriga kuugu imaan adiga sodogaayo isku dheggan baad arki doontaa gabdhaha dabeecadahoodu sidan oo kale ay yihiin waa gabadha marka hooyadeed ay waxu dirto aan dhegaysan markay canaanato hooyadeed oo ay qasab kaga dhigto inay istaagto oo qolkeeda hagaagsato oo qubaysato oo cuntada sida loo kariya barato oo ay dumarnimo u diyaariso afkay taagi guriga iska dhex fadhiyi maanta dhan bay joogi meelahaasay meeraysanaysaa wixii loo diro waa iska qaban odagu markuu guriga soo galo soomaalidu waxay ku mahmahdaa gardarro garab og iyo gaajo guri og midna lagama gar helo odagu markuu soo galo uunbay ilmada daadin maanta dhan waa la idilayay sidan baa la igu samaynayay odagu reerkoo dhan colaad buu qaadaa haddaba gabadha sidan ku soo kortay ee la kibriyey aabbaheed madaxa u saarnayd ma kula tahay nin ay shalay la kulantay wakhtigii rabta ka tegi karta in ay wax ka maqlayso dabcan maya war xataa marka laga soo tago dadka guriga ay kula nooshahay intaysanba adiga ku soo gaarin macallinka qur'aanka u dhiga iyo kan iskuulka u dhiga waxay iskaga hor imaan doonaan casharkaagiime haddii uu damco inuu edbiyo oo ku adkeeyo si casharkeeda ay u diyaarisana odagii bay wacan waxay leedahay maanta dhan waan lagu tumanayay odagu marka dheg la qabta male iyada uunbaa il iyo dheg u ah isagoo ordayuu imaanaya qof walbana madaxa isla gelayaan aabbaha labaadna waa mid nolol ahaan iyada ku tiirsan intaanba guur la gaarin gabdho badanoo waxaa jira qurbaha jooga 40kii ku dhow weli aan reer lahayn haddaad weydiisana waxay ku leedahay waxa intaa isoo gaarsiiyey oo facay iga reebay waa aabbahay intuu dhalay haddaad u dhaba gasho iyadu waa qof weynoo 40kii ku dhow waxaad leedahay dadka kale sow adiga da ahaan hadda kuguma dhowade markaasay ku leedahay maya waayo odagu sidii shaatiyadiibuu dumarka u kala badbedelaa meel walba xayn buu ku dhalaa uusan biilayn uu og yahay inuusan tabarteeda lahayn waa kaga tagaa iyaduu soo wacaa xaafaddaana xayn kalaa joogtay aabba biilka ku darbooran aabbaha saddexaadna waa mid dili jiray oo ku naxariis darnaa oo ku hadal qallafsanaa siday u soo caqliyaysatay ilaa qaangaarka ay kor u soo dhaaftayba wax naxariisa nolosheeda maysan arkin ninkii ugu sokeeyey ee bahweynta rag ka turjumayey ee horseedka u ahaa markay noqoto dhinaca tusaalaha waxa ay kala kulantayba waa naxariis darro iyo qallafsanaan maalintaad labadiinna kulantaan oo damacdo inaad kalgacal siiso qalbigeedu kuuma furnaanayo mar kastood u naxariisato mar kastood u dabacsan tahay mar kastood u jiljilicsan tahay waxay kuu arki doontaa inaad tahay ragga kan u jilicsan xaaladaha qaar baa waxaa dhacda xataa haddaad murantaan inay ku tiraada ragga kale sidoodoo kale umaba adkidba ood adiga naftaadu isla yaabto tirada maxaa khaldan haddaad u dhabbagashana waxaad ogaan qaamuuska turjumo xumada ragga ay ka wadato meeshay ka keentay inay tahay aabbaheed naxariis darradaas waxaa dhici karta xaaladaha qaar inaysan iyada keliya ku koobnayn ee mar walba ay u sawiran tahay siduu aabbaheed hooyadeed u geli jiray waayo horteedaa lagu garaaci jiray maalin walba horteedaa lagaga oohin jiray qalbigeeda waxaa ku jira waa dhaawacyadii aabbe uu hooye u geystay sawiradooda inta badan marka gabadhan haddaad qabto tan aan ka hadlayaa maba ahanba midaad qabto laakiin gabadhan oo kale haddaad qabto marmarka qaar baad waxaad arki doontaa
iyadoo iska ooyeyso cidla joogta haddaad weydiiso tiraada maxaa kaa khaldan waxay ku leedahay waxba haddaad si kasta isugu dayda hadalka inaad ka soo saartana way kugu adkaanaysaa inta badanna waxa keena wax kale ma ahan inaysan gabadhu ilaa xad u qalbi warramin ninkeeda waa kalsooni buuxda baysan kugu qabin waayo in badan waxaa dhacda in qofku nolosha la wadaago wax uga warramo marka khilaaf uu yimaadana la isku caayo taasuna waa shay aad iyo aad u khaldan inaa qofku waa waxaan hadda ka horba mar video waxaan ka iri maran dhaweyn bay ahayd 2020 2021 mid bay ahayd waxaan iri dadka qaarkood hubkii ay kugu dili lahaayeen adigu ha u dhiibin marmarka qaar markaad dadka qaar wax u sheegto baa waxaa dhacda wixii aad u sheegtay inay kugu caayaan marka weliba ay kuugu daran tahay qofka aad ku caraysan tahay markaasaa ciil waxaa ku qabanaya maxaad qofkan wax ugu sheegtay noloshaada dambana waxay sabab kuugu noqonaysaa inaadan cid dambe aaminin midda lixaadna waxay tahay gabadha nimanka badan gabadhu inay niman taqaan kuma ceebaysna waayo qofka bini'aadamka ay dad fara badan oo kala duwan wuu aqoon karaa hortaabay soo noolayd oo adduunka soo joogtay adiguguma horraysid rag laakiin ragga aan ka hadlayo way ka soocan yihiin kuwa guud ee bulshada waa kuwa telefoonkeeda aan ka dhammaan kuwan aan ka hadlayo haddaad 2 daqiiqo la fadhido waxaad moodi telefoonkeedu inuu 1800 yahay oo ay shirkadaha waaweyn mid ka mid a qaybta customer service-ka ay u xil saaran tahay haddaad weydiiso tiraado qofka hadda ku soo wacay yuu ahaa walaashay saaxiibteed ninkii qabi jiray ku leedahay oo kii ka sii horreeyey muxuu ahaa waa kii waagaa yara qur-aanka ii dhigi jiray oo kan hadda ku soo wacayana yuu yahay markaasay ku leedahay daris baanu ahaan jirnay intay kaaga sheekaynaysa darisnimadoodii baa telefoonka kaasu ka baxaya haddana mid kala soo wiciyo yuu yahay markaasay ku leedahay kan waabaanu isjeclaan jirnay ragga aan ka hadlaya ee gabadhu ay taqaanaa waa kuwa midda toddobaadna waa gabadha si cad kuugu sheegtay inaysan ku jeclayn kuna rabin laakiin adigu aad qasbayso rajo ka qabto maalin uun ama qalbigeedu isbeddelaa rag badan xoolo iyo wakhti baa halkan kaga baxa intuu xoolaha bixinayo wuxuu moodayaa inuu maalin uun gabadha tan soo jeedin doono maalin uun qalbigeeda inuu kasban doono laakiin mid baan rabaa inaan kuu sheego gabar si kastoo daacad ugu tahay kugulama joogayso si kasta oo aad deeqsi u tahayna kugulama joogayso si kasta oo aad u hadal macaan tahayna kugulama joogayso si kastood u qurux badan tahay kugulama joogayso si kastood xoolo adduunyo iyo aqoon meel sare ka joogtidna kugulama joogayso gabari hal shay oo keliya kugula joogi kartaa waana hadday iyadu ku rabto haddaysan ku rabin intaa wixii ka dambeeya waxaad iska khasaariso dee sadaqana kuuma ahan xoolahaagina waa kaa lumen qalbi jab uunbaad ka qaadi doontaa rag badan oo xaaladdan ku jira maalin walbana isqasbaya say doonta ha qurux badnaato siday doonta ha kuula wanaagsanaato mar inaysan ku rabin miyaysan kugu filnayn qof ku leh kuma rabo ood leedahay anaa ku raba haye haddaanan anigu ku rabin rabitaankaaga keligii muxuu adiga ku tarayaa bay kula tahay anigu waan la yaabaa dadka qaarkood maskaxdooda siday u fakaraan qof aan i jeclayn maba jeclaan karaba waxaaba igu filanba qofka si kastoon u jeclahay hadduu i yidhaahdo maanta ay u kaa dambayso kuma jecli halkaasuu ku go'aa bartuu igu jaray uun baan kaga dhaqaaqi haddaadan sidaa yeelin wakhti badan baa kaa baxaya kharash badan baa kaa baxaya enerjigaagii baad iskaga luminaysaa waxaad tahay qof sacbacaad ku lisaya meeshaad weel u dhigan lahayd aakhirkana waxaad ogaan in wixii aad intaasoo sana daba ordaysay mararka qaarkood kaysaskay soo gaaray ka mid tahay in gabari ay nin la socoto ninkanna uu iyada isku qasbaya maahane rabitaanay u haysa aysan ahayn waxa ay ka qaadana mid kaloo qalbigiisa ay rabta inay kasbato inay hadyada ugu gado oo casho ku geyso oo ku koolkooliso oo xataa marmarka qaar baa waxaa dhacda $10 rag inta laga qaado in nin kaloo faciisa iPhone loogu iibiyo waxyaabaha isoo gaara ee caddaymaha cadcadeen hayo haddaad arki lahayd wakhtigaaga iskagamaadan lumiseen gabar kule kuma rabo haddaynan ku rabin waa caadi qalbigana lama qasbi karo waa inaad tahay nin ragoo go'aan leh quusan kara dhaqaaqi kara war adeer rag adiga kula mida oo intaasoo sano gabdha soo qabay baa iyagoo jacayl u qaba kuma rabo ay tiri darteed kaga dhaqaaqay adigu waxaad ka hadlaysaa mid aydaanba weli sariir wada seexan mid aadan cuntadeeda aqoonin carafteeda aadan garanayn quruxdeeda oo dhammaystiran sidii hooyadeed ku dhashay aadan arkin damiirkaagu waa inuu keensado inaadan iyadana ciriiri gelin suuqeeda iyo danaheedana aadan ka qasin adiguna naftaada inaadan isa silcin dumar waa buuxan markaad maskaxda faqiir ka noqoto markay dhanka dumarka noqoto oo aad noqoto mid rabitaankiisu meel walba iska yaal
ragga qaar waxaa jira internetka markay saa u galaanba gabar kastoo xoogaa yaro qurxoonba markay arkaan qofkii waa ku jecelahay inaan ku guursadaan rabaa gabar kastoo qurux badan waxaad ogaataa mid dhareerka daadinaya meel kasta taagan gabadhu ninka keliya ee ay sharfayso ay qiimaynayso ixtiraam u hayso waa ninka go'aankiisu adag yahay waxa uu yidhaahdana ka dhabayn kara haddaad laakiin sii barido oo maalin walba daba taagantahay kabuhu way kaaga dhammaan sidaasaad maalinba meel bajaaj uga raacaysaa hadhowdii cuntada aad u geysay iyo wixii aad hadiyada u geysay soo noqodkaaga haddama haysata waxaa baawar ku soo raacdeeday rag badan oo silaca iyo rafaadka noloshooda iyagu u dooray baa jira gabadhaasuna wax lugay kugu leedahay ma jirto mar hadday warkeeda kuu caddaysay adeer wakhtigaaga iyo lacagtaada midna ha iskaga khasaaran intaa wixii ka dambeeya haddaba dhammaanteen intaynu podcastgan mid ku xiga dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh